kulanti wacan oo wanaagsan dadkana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Afro TV oo si toos ah uga dhageysanaysaan ama baad uga daawanaysaan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka. daawadayaal maanta waxaa studioheena Afro Studio marti nooga ah duqi hore ee magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir aadade iyo waliba gudoomiyihii gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo isagu maalmahan socdaal ku joogay isla gobolkan Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis. marka hore soo dhaw Maxamuud Axmed Nuur Tarsan kuna soo dhaw Afro Studio Minneapolis. aad baad u mahadsantiin. وهاجاج مركو ورسان كويدية بل مينيسوتا مركي كوه ريسيبا ترسمون بسوا دور تبات ومركي كوه مركي كوه ريس أركتي هذا مينيسوتا سيدة مجال أقرحهم environment قرح ميران بيه إلهي كم نيستي عجارك إلهي كم نيستي وحن رجيني نود دمده إن سيدا environment كان له هجاج نطور مستقبلك حالي أمكدي لا سمات سيحوه آد إنك استواني قرحية دي يسنقل له ذي هاي لكن أنا كو قرحيان ملايين دور جربان كبود سررت واي وهي سؤاله هني بنقول قال دونا سؤال أوه الرئيسة إنك استوسيه وهي جواب تطبيحين دوتي لكن أصاب بندقه مقدشو مع عاصمة الصومالية أم الصومالية كوضع حيسا سوى عاصمة أي دد قاري لي مقدشو عاصمة الصومالية كده حيسا ويقف قار أولا ملا أمد الصوماليات با مال قشتي أمد الصوماليات با هنتيدي دي قشتي dagaal baa ka dhacay haddana Muqdisho waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliyeed oo ku soo noqdo qof kasta oo Soomaaliyeed oo hanti ku yeesho dhulka iibsado shaqo ka abuurto ee dadkii guryahoodii hantidoodii ka qaxayna inay ku soo noqdaan oo ay qaataan shuruud la'aan ay ku qaataan hantidoodii iyo dhulkoodii iyo beerahoodii iyo maaragtay guryahoodii jawaabta imkaad siisay Tarsanow mid la mid oo hadda ka hor aad bixisay kuna tilmaantay Muqdisho inay tahay caasimadii Soomaalida ama dadka Soomaaliyeed ay u dhaxayso odayaal baa ka daba hadlay markaasi kugu tilmaamaya inaad gudcur xulaysid oo aan ahayn Muqdisho meel Soomaali u dhaxaysa laakiin ay tahay meel dad gaari ama iyagu ay leeyihiin aqli gaaban oo cariiri fikir cariiri oo aqli gaaban oo taas waaya waxaan gudagalaynaa magaaladii aad duqa magaalada ka ahayd gudoomiyahana ka ahayd gobolka Banaadir magaalada Muqdisho caasimadda ah dhibaatooyin fara badan baa ka taagan dhibaatooyinka inta badan ka taagan waxa qayb ka ah guryaha la kala haysto ama hantida maguuraanka inta badan ee aqaladu ay kamid yihiin dhibaatooyinka faraha badan la xalkooda markii aad guda gashay maxaad xalisay maxaa ku suura galay maxaa horumar sameysay guryo badan baan celinay gudoomiyaasha degmooyinka guryo badan bay celiyeen iyadoo loo baahan maxkamadda in la marsiiyo waxaan la isku ogaan ku heshiinay in guryaha sida fudud loo celin karo loo celiyo iyadoo dadka maxkamad lagu wareerin guryaha dadku ay iska degan yihiin oo ayna sheeganin annaka kale ayna dhahaynin dadka u yimaado annaka kale haday warqadahoodii keensadaan documentski haday keensadaan in loo celiyo waqti gaaban muddo ugu badan asbuuc gudahood in loogu celiyo guryo kala dhibaato ka taagan yahay nin qof waa gatay qof kale uu ka sii gaday qof kale uu ka sii gacantii saddexaad kuwa marahaya jira kuwaasi marka waxay u baahan yihiin maxkamadda in lagu kala saaray u baahan yihiin kii ugu horeeyo gaday sharci ma u lahaa inuu gado sharci ma lahay maxaa ka ratibmay waxaasi waxay u baahan tahay maxkamad laakiin kuwa dadku ay leeyihiin 22 سنة دجنا أنا سيهاي أنا قاعد كوين هاي وسهل ويأد بلو علين كرا وحكلو دبعتو كتا أنت دول بنانا أو ضد لهاين أو هذا الجريا لقدسي حل كذا أيضا سيد الله حلنا مركا أيضا حل بيربطها حل محكمة بيربطها مركا رمها لكن وحن قبع ضد كصومالي ضدن مقدشو جوجا مسؤولين تدن إن من سنة يقف كست هنتديسي إنه عليه مركا شقوينك وبضنا مركا هاي قداميها قبل كبنات رد قاعد كويسي guryaha sa ugu badnaa guryaha iyo dhulka la isku haysto warqado falsa dad badan sameysteen oo hanti been ay sameysteen warqado aan jirin bay sameysteen marka kala saaridooda yaa leh qofka iskala dhulka xaq u leh yaan lahayn waxaas mushkilada ugu weyn gud waxaan qabanay marka khilaafaadka dhulka la dhaho maxkamadahana waxaan uga dignay in ayna maxkamad xukumin wax ayna gobolka soo weydiin oo maaragtay gudigaas uusan ka soo bixin warbixin ka soo bixin ayadana saasan isku ogeyn saasna waan isku raacnay wax badan bayna xallisay runtii intii aad gudoomiyaha ahayd ama duqa magaalada Muqdisho ahayd maxaad isleedahay yani percentage-ka boqolkiiba inteen leeg baad dhibka inta percentage ma sheegi karo laakiin dad badan baa guryahoodii loo celiyaa mar aad ka hadlaysay guryo dunsan oo aad ku baaqday in muddo gaaban lagu dhiso hadii kale shirkado ay dhisan karaan si dhulkaasi marka uu noqdo meel bilicsan oo guryaha dumistooda loo astro ama loo qariyo dad badan baa arrintaa ka cadhooday ama ujeedo kala fahmay ujeedadaada saxda ahayd maxay dadka horta qaarna
siyaasad bay ka lahaayeen oo way qalad bay tarjumahayeen wax hadalkan dhahay iyo waxaan dhahay wax ka fog ayay tarjumahayeen anu marnaba ma dhihin shirkadaha qaadanahaya waana laga qaadaya marnaba ma dhihin laakiin waxaan ku iri dadka jidadka caamka shabeelle camal waxaan soo qaatay gurigii sartii weyneed oo sulfiqaar uu ku jiri jiray dukaamada ahaan jirtay aad bay u burbursan tahay waxayna ku taallaa magaalada centerkeedii bay ku taallaa marka waxaan iri guryahaasi jidadka waaweyn ku yaala frontiga dadkii lahaa ha dhistaan haddayna awoodin heshiisa la galaan shirkado dhisahaya ama dad dhisi kara oo ay ku heshiin karaan inay maaragtay ama kira ay marka dambe ay siiyaan hab caynkaas ah laakiin waad ogtihiin adduunka dhan municipality-ga ma ogolaanayso meelo bilicda magaalada guryo ka dhisan oo burbursan ma ogolaanayso ama dadka iskale waxay dhahaysaa dhisa ama gada ama dowladda la wareegaysa safaaradaheennii tii Belgiumka ku taalay tii Jarmalka ku taalay waxaasoo dhan asbaabaha lagu kalifay in la gado ama waxay ahayd meel waxay ku yaaleen center ah way baaba'san daryeel la'aan marka safaaradii waxa la dhahay Soomaaliya ama dhisa ama iibiya ama maaragtay si kala loo xalli laakiin ma ogolaan karto municipality ogolaan karta Minnesota hadda sartaan ugu weyn jidadka hadday jidka dhexbartankiisa ku taalo hadday burbursan tahay qofka iskale waxa la leeyahay ama gad ama dhis ama shirkad ku wareeji oo kula heshiiye waa wax caadi ah oo adduunka dhan ka jira ma ahay wax tarsan alifay ma ahayn waya haddaan eegno dilalka qorshaysan inta badan ka dhaca Muqdisho oo dad gaara lala beegsado dilalkaasi ama culimo ha noqdaan ama saraakiil ha noqdaan ama dad ganacsato ha noqdaan ama xildhibaano waxaa lagu eedeeyaa inta badan kooxda al-shabaab ayaa dhabarka loo saaray inay dilalkaasi ka dambeeyaan intii aad xilka haysay duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Mr. Tarsan marna ma ka fikirtay ama tuhun ma ku galay tilmaami karaya in dawladda lafteedu ay ku leedahay arrimaha maya dawladdu lu kuma laha dawladda markaa tiraahid micnaheedu waxay noqonaysaa dad mas'uuliin ah inay lu kuleeyihiin ani ila ma aha qof mas'uul ah inuu maaragtay qof kale Soomaali inuu assassination ku sameeyo ama uu dilo inay ka suuragal tahay ila ma aha dadka la dilahayo shabaab inta badan dila kuwa kale waa tuugo iyo maaragtay wax argoosi ah wixii shabaab ka baxsan waxay noqonaysaa wax argoosi ah oo dadka aan isu qabo argoosi wada ay noqonaysaa laakiin waxaad ogaatiin shabaab waxa way abaabulaan dadka dilaayo ciyaal yar yar oo lacag la siinayo way ciyaal yar yar oo lacag la siinayo oo aan shabaab ahayn aaminsanayna waxay shabaab aaminsan yihiin laakiin lacag la siinayo way marka kuwaas xal bay u baahan tahay halka ay u baahan tahay waxa weeye wuxuu i xilanayaa qof muslim oo Soomaali inuu dilo ay wuxuu ugu xilanayaa in $100 la siiyo shabaab ay si ugu xilanayaa marka haddii asaga kuwa caynkaas inta markii lagu qabtay inta la dilo la suro asbuuc ay meesha surnaadaan mar dambe ma ogolaadeen nin $100 qof ku dilay ma ogolaadeen kuwa adeegsanayaan ma ogolaadeen laakiin taasa meesha ka maqan waxa jirtay hadda ka hor in 6 nin oo dhaqaatiira lagu dilay duleedka magaalada Muqdisho 4 kamid ah u dhasheen wadanka Suuriya runtii tarsan ahaan aad kaaga xanaajisay aad kaaga cadhisay calool xumo kugu dhalisay waxa sheegtay mar aad hadashay in dad gashan askarta Dreeska ciidamada Soomaaliya inay ka dambeeyeen waliba waxa timaantay in la garan karo dadkaasi ayna haboonta in la soo qabto cid mar dambe la soo taagay maxkamad ama arinta ka hadashay ma jirto marka sidaas oo kale oo leedahay dadkaas waxay gashanayeen Dreeska ciidamada dawladda maana marka ahayn inaad tilmaamtay in dawladda lafteeda ay ku leedahay maya ciidan dharkan suuq u yaala dhibaatooyinkii amni darrada magaalada Muqdisho ka taagan waxa kamid ah ma kala naqaana yaa ciidan noo ah yaa cadow nagu ah dharkii baa la wada gashan yahay marka dharka hadii la tilmaamo micnaheedu maaha inay yihiin ciidamada dawladeed inay yihiin micnaheedu maaha dharkii suuqii baa lagu gadahay marka dawladda laga rabaa inay mamnuucdo dharkaas qof aan ciidan ahayn inuu san qaadan si aan u kala garanno cadowgeena iyo maaragtay saaxiibkan sidaan hadda ma kala garanayno cadowgeena iyo saaxiibkeena dhibaatooyinka ka dhacay oo dhan baarlamaanka gelidiisa madaxtooyada gelideeda maxkamadda gelideeda wax lagu galo dhan waxa weeye ciidamo hubaysan oo dharkii dawladda wata iyo baabuurtii caynkaas wata oo aan la garanayn qof joojinahay mal qof tuhmaaya male marka taas way macnaheedu ma ahayn ciidamada dawladeed baa dilay markii dambe oo la baarayna informationka aan ka helay qolooyinka nabad sugidda waxay ii sheegeen inay shabaab ahaayeen nimanka dhaqaatiirta dilay tarsano baabuurta xukuumadda baabuurta dagaalka ah ee gaashaaman ee baranada waxa dadku ay inta badan u yaqaanaan kuwa aan ahayn oo dawladda aanay lahayn oo dadka leeyahay oo magaalada iska dhex mushaaxa ma jiraan waa jiraan waa iyadana cilada magaalada haysato ee amni darrada ku keenaysa lama kala garanayo lama kala garan karo waa waxaan kuu sheegaan leenahay cadowgeena iyo askarteena ma kala garanayno ciidamadaasi waa hub waaweyn ee gacanta dawladda ku jirin marka in
taasna wax laga qabto waa waajib haddii kale magaaladu amni ma noqon karayso waaya al-shabaab haddaynu galno sababaha looga adkaan layahay kooxda al-shabaab waxaa lagu tilmaamaa in qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladdu ay la shaqeeyaan waxaa la tilmaamaa in ay ka mid tahay arrimaha looga adkaan layahay nabad sugidda dowladda oo daciifa waxaa kaloo la sheegay in shacabka muqdisho in badan oo ka mid yihi inay hoos ula shaqeeyaan arrimahaas maxaad ka odhan lahayd shabaab waa laga adkaaday horta maxaa looga adkaan waaya hadhihina waa laga adkaaday magaalada muqdisho marbay inta ugu badan ay haysteen 90% ay haysteen magaalada muqdisho waa laga farmaroojiyey waa laga saaray shabaab meel ay hadda joogaan oo ay ku sugan yihiin shabaab baa difaacaysa la leeyahay ma jirto shabaab marka shacabkii bay soo dhexgaleen waa shacabkeena waa wiilasheeni waa gabdhaheeni dad sympathy u hayana waa jiraan oo tacaatuf u haya waa jiraan dadkaasi marka way qarinahayaan laakiin shabaab meel ay haystaan ma jirto ilama aha arrintan ah dad dowladda ku jira la shaqeeya fikirkaas anigu ma qabo laakiin waxaa dhici karta dad askar ah in waxyari ay u geysay in lacag la siiyo oo ay information ay siinahayaan amase markii lagu soo socdo ay sheegahayaan waxaas waa dhici kartaa waxyarida askarta haysatana ayay ka mid tahay taas intii aad ahayd duqa magaalada muqdisho ama guddoomiyaha gobolka banaadir saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab weligaa ma kula soo xidhiidheen ama ha ku yidhahdaan aan isafgaranno aan wada shaqayno ama ha ku hanjabaan ama wax kale wax kuu sheegaan toos ma wada xidhiidheen waa ii hanjabeen hanjabaad joogto ahaa laygu hayay laakiin aan wada shaqayn inaan la shaqaynin way ogyihiin waxaa weye qoraxdoo ka soo baxday weye dhanka kale weye waa tahay marka maxay ku hanjabaan maxay ku hanjabaad waa qaar baa dhaha joogtay tax message ku soo diraan waan naqaanaa jidkaad martid marbaan waxaan mari jiray hal jid baa ii furnaa shaqada inaan aado jidkaas ii furnaana waxaa lagu dilay 4 mas-uul baa lagu dilay lagu qarxiyey marka waxay dhaheen kuwaa ii soo diray marka waxay dhaheen reerkaagaan nahay isku reer baan nahay xamar weynaan kula degannahay jidkaad martid baan naqaanaa habeen dambe waxaad arki doonaa jirkaaga oo cadcad u duulahayaad arkaysaa marka handidaad caynkaas iyo waa ku dilaynaa iyo ma sii noolaanaysid iyo asbuuc ma noolaan waxaas waxyaabahaasay soo dirdiri jireen mar miyaa jirtay xawaalada dahabshiil aad tuhuntay inay ku leedahay inay kooxda al-shabaab quudiso ama wax siiso waxaas ma jiraan cashuurtana aanay ka bixin magaalada muqdisho ama guryaha ka dhisan waxaas nin mas-uula kuma hadlo weligeena kuma hadlin ereygaa ma dhicin been waay waxaas waayahay su-aal kale haddaan ku weydiiyo ka tirsan ahaan joogitaanka ciidamada Ethiopia ee dhulka Soomaaliya aad baad uga soo horjeedi jirtay runtiina marar badan mudaharaadyo ayaad ka qayb gashay ama soo abaabushay London markii la joogay aad joogtay xilliga oo Allah naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweyne ka ahaa Soomaaliya ciidamadana uu keenay isagoo magaalada Muqdisho xilligii imika aad ahayd duqa magaalada Muqdisho iyo weliba guddoomiyaha gobolka Banaadir Ethiopiaanka waad isla joogteen saraakiishii waa wada shaqaynayseen shaaba wada cabayseen tarsano mashalada khaldanayd markaad Ethiopiaanka aad diidanay si maanta saxsantay horta Ethiopian shaah ma naan wada cabin ma naan wada shaqayn sababtoo xamar ciidamo jooga oo Ethiopian ma jiraan tan labaad waagaas Ethiopiaanku waxay ku soo galeen wadanka si sharci darro ay ku soo galeen maantana waxay wataan wax la dhaho Amisom bay ku soo galeen Amisomna waxay mandate ka haysataa United Nationska waxayna ka haysataa African Unionka marka Amisom mandate ay haysato mandate soo maray UN-ta Security Council-ka African Union way meel looga baxay leedahay laakiin wadan kale oo deris kula ah haday ciidamadiisa wadanka soo galaan ayagoon haysan mandate haysan taasi marka wax laga caroodo way taasayna ay arintu farqiga u dhaxeeya maanta iyo shalayna taasay ahayd annagu waxaan ognahay mandate ku joogan roolkooda waxay sameynayaan baa hadda la ogyahay laakiin waqtigaas lama ogeyn waxay yihiin iyo dadkii mathalahayaan iyo dadkii u yimideen iyo dadkii waxay ku kacahayaan qof mas'uuliyad ka qaadi karay dambigay galaan hadda ma dambigay galaan qolada Amisom meel loo raacday leedahay laakiin ciidamadaasi markaas meel loo raacdo ma lahayn dambigay galaan laakiin tarsano Amisom dhawaan bay ku biireen maahan hore ugu ma jiri jirin Amisom ciidamada Ethiopia iskood bay u joogi jireen iskood waxay u joogeen xuduudyadooda ayay u joogeen anigu anoo guddoomiyaha gobolka magaalada Muqdisho ma iman meel authority ku egyahay ma iman meelan authority ku ekayna anigu markaan ahay duqa magaalada Muqdisho markaan ahay governorka Banaadir authority waxay ku egtay gobolka Banaadir haddaan u tilaabsado gobol kale ka hadlo dawladda centralka aan faragelinahay dawladda centralkana inaan siyaasadeeda ku farageliya xaq u mali waaya haddii su'aal kale aan ku weydiiyo waxa la yiraahdaa wadanka Soomaaliya xilliga la joogo waxa gacanta ugu jira koox yar oo ciyaar taqaana oo lagu magacaabo damo jadiid saameyn inta leeyahay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya ka tirsanaa maxaa oranay anigu horta ma rabo dawladdii aan kamid ahaa inaan wax ka sheego ma doonayo caadadaydana ma aha dabeecadaydana ma aha shakhsiyadeydana ma ogolaanayso inaan dawlad aan ka tirsanaa aan wax ka sheego laakiin hadalka suuqa ku jira waxa weeye group dami jadiid la dhaho inay siyaasadii saydaraysay oo siyaasadii wadanka dhan ay gacanta ku qabatay taas ayaa suuqa ku jirta dadka Soomaaliyeed ay u taalaa marka inay arintaas run tahay
iyo in kale inay tahay laakiin hal mid baan sheegahayaa wadankani waa ummadda Soomaaliyeed baa isla leh koox saydarayn karta ama koox keligeed qabsan karta ama ku fakari karta inay keligeed ay wadanka maamulato ma jirto hadday koox ku fakartana way qaldan yihiin wayna ku fashilmayaan baan leeyahay marka wadankani ummadda Soomaaliyeed buu u dhaxeeyaa haddii xataa hadda xisbi wax lagu doortay ma jirto laakiin xataa haddii xisbi qof lagu soo doorto oo xisbigiisu aqlabiyad run uu helo micnaheedu maaha dadkan u dooran marginal in laga dhigo maaha dadku waxbay isla leeyihiin wadankay wada leeyihiin xaq bay u leeyihiin siyaasadda inay ku jiraan marka waxaan leeyahay hadday kooxi ku fakarto ama shakhsiyaad ay ku fakaraan in ay keligeed wadanka ka talin karaan ilama aha mid shaqaynaysa mid fashil u dambeyn doonto wey doorashooyinka soo socda 2016 2016 ee la doonayay in doorashadu ay si toos u dhacdo ma isleedahay waa diyaaro waa la samayn karaa mise waxaad isleedahay weli caqabadaha hortaada wallaahi waa anigu ayaan dhaweydna fagaaraha markaan ka hadlayo waan sheegay doorashada waa la samayn karaa waa haddii rabitaan iyo commitment ay jirto oo dadka mas'uuliyiinta ay rabaan in ay doorasho waqtigaas dhacdo commitmentina ay ku galaan inay ay ka shaqeeyaan wixii loo baahnaa inay diyaariyaan waa la diyaarin karaa oo mucjiso maaha laakiin waxaa la rabaa intaan doorashada dhicin shuruudo ay leedahay shuruudahaas in lala kulmo shuruudahaasna waxaa looga tilaabsan karaa commitmentigaas iyo rabitaankaasa looga tilaabsan karaa mathal in dadka registration lagu sameeyo dadka doorashada galahaya gobol kasta ka galahaya in la qoro oo ay record garaysan yihiin sidii hore ma geli karno qof kasta 10 jeer ku soo noqonayo ma geli karno dadka codaynaya in la qoro waxaa kamid ah in commissionkii dadkii dad dhexdhexaad ah oo mas'uulka ah doorashada qabsoonidooda inay jirto maxkamadihii hadduu khilaaf yimaado maxkamadihii kala saari lahaa maxkamad يعني هفن محكمة هفن هي الشخصيات هفن إن محكمته أي جوجان إن سويشن ندي معمول لها إن أي دسيه وحصلنا أي شروطها صدنا لبعض السنة هرتوا والجود ما ينكرها وهدي جرتون يا صالحة ربيتان يكمدمنت هدي جرت أنت عاد كدكتي أما شروط كدكتي إن لسمية دورشين كاس إن الصورة كلا متشران مسمتشران ما يهدى مجران نيدا ما الله هي ما أقان أنا أقول سياسة ده حكوا أكيد قبل كبنادر سياسة الدولة ده حمل فرقلين جري ما ندقي سنجرين قبل كبنادر بنكوا كمركب ما قرنا هيو ما له أم رئيس هذه دبول نقول ترسل مركز هاي قداميها قبل كبنادر عقبتها كهوري اللي هذه شركة هوري من شري كو أتكين شري إن شغلة هذا يسيس عطم حقوها ولا عقبتها هو وين وحاول سنترال جامنت تجيبها مقالة مقدشة بس كتلنيسي marka central government-gii roolkii mayorkii iyo governorka roolkiisa iyo roolkii wasiirka arrimaha gudaha ma kala saarnayn wasaaradaha roolkoodii iyo roolka mayorka ma kala saarnayn mathal tacliinta hoose primary education iyo primary health care had iyo jeer adduunka waa la ogyahay mayorka ay hoos tagaan maadaama wasaaraddii tacliinta ayna meel kale ayna gacanta ku haynin marka iskoolkii primaryga ah waan isku qabsanaynaa iskoolaad baan rabnaa inaan dhisnoon u keenay lacag in lagu dhiso wasaaradii tacliinta dhahaysa annaka dhisayna ma dhisi kartiin joojiya ma aragtay booliiskii waa inuu gobolku booliis gaar oo ka amar qaata oo la shaqeeyo si toos ula shaqeeyo governorka waa inuu jiraa ma jira police commissionerkii bay wixii dhammaan hoos tagaan oo amarka ama qaadanayaan police commissionerkii in la xiriirto way police commissionerkana darafka wadanka ugu shisheeyay ilaa kan ugu dambeeya asaga ka mas'uul ah muqdisho kaliya maaha marka problemkaas ayaa jiray weakness kaasna waa jiray marka dhibaato ahayd laakiin waa ku dhex shaqeynayna iyadoo sidaas ay tahay shirkad Turkiga baa maamulayay airportka shirkad kale maamulayay dekada mid kale meel kale laga karay waxaas oo dhan sidee baad u maareyn jirteen qandaraasyada aydan ogeyn shirkadaha caynkaas oo kale horta shirkadda airportka waa national maaha local maaha airport dekadana waa national local maaha marka labadaas facility waa national laakiin gobolkuna wuxuu ku leeyahay kelimad buu ku leeyahay marka annaku maanaan arag meel contract lagu dhiibay iyo meel lagu heshiiyay maanaan arag laakiin mid aan shakhsiyan aaminsanahay jira anigu waxaan aaminsanahay dekada shirkadaha waaweyn ee professionalka in loo dhiibo ee laga wareejiyo gacanta maamulka dowladda in laga wareejiyo airportkana sidaas oo kale ilaa uu ka hormaro la dhisana kawaadir ka shaqayn karta ee hufan ee ethics-ka shaqada leh ammaanadiisii leh
in inta laga gaarayo laga tababarayo workforcegaas laga tababarayo in shirkado professional maraykanka shirkad carabaha qaadatay deked weyn oo ay halkan leedahay micnaheedu waxa way horumarka wuxuu ku jiraa waxa marka private laga dhigo oo shirkad private oo profit seeking markay ay maamulayso laakiin public markii la dhaho yaa iskale way xoolahan dadka iskale way qof kasta siduu rabo u tasarrufaya maqaayad dadku wada leeyihiin iyo maqaayad shakhsi leeyahay waxaa hormaraysa oo kacaysa maqaayadda shakhsiga leeyahay sababtoo maqaayadda kale hoteeladeeni waad ogeyd waagii hore hoteeladeeni dowladda gacanta ku leedahay dowladda looguma talagelin hotel inay maamusho hoteeladeeni wasiir baa xiranay qolkan wasiir kale qolkan xiranay kabalyeerigu bakeeriyaashii buu qaar qaadanay kuwa cuntadii buu qaar qaadanay kuwa maryaha firaasha maryihii bay qaadanay markii dambe hoteeladii oo barambaro ay ku socotaa la arkay marka ma dhici karto waxyaabaha qaarkood kuma fiicna in ay dowladda maamusho waxaa ku fiican tahay inay private aan loo maamulo fikirkaas anaa qaba budgetkiina gobolka banaadir oo kale ma u madax banaanaydino ها وأنا مدح بناني يس sidee bay ka ahayd dhinaca kale fargelinta hay-adaha dowladdu marka ka duq ahaan oo kale aad tahay duqa magaalada muqdisho sidaan kuu sheegay central governmentiga magaalada muqdisho degan awoodihiina ma kala hufna marka meelo badan marka waa inaad lamana dagaalami kartid oo dagaal kuma jiri karaysid marka marmarka qaarkood waa inaad tanaasushaa oo compromise samaysaa oo wax ka tagtaa marmarka qaarkood waa in wax lagaaga tagaa sidaasay ku socotaa arrintu waaya intii aad ahayd duqa magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka banaadir master tarsan maxaad is leedahay madaxa ama abaala ayaad ka tagtay oo xasuus ku noqon kara berri ka maalin taasi anigu fanka ma jecli in la ifaaniyana ma jecli in aan isfaaniyana ma jecli waxaan rabaa shacabka soomaalida in ay taariikhda xusaan waxaan sheegi laakiin arrimaha aan ku astaahilay in bilad laysiiyo laakiin soomaalidu wax isuma ogola colaad bay kuu qaadi markaad wax wanaagsan samaysid colaad bay kuu qaadi soo ma garan abaarihii maya abaarihii 2011 arrinta aan qabanay gobol ahaan arrin waxay ahayd bilada isku siiyo sababtoo ah abaarihii international community oo soo gurman dowladda centralko wax lacag aan dhiibin ayaan waxaan samaynay laba xero waaweyn ayaan samaynay xerada la dhaho badbaado iyo xerada la dhaho rajo ayaan samaynay xerada badbaado la dhaho 4,000 oo qoys ayaan 2 bilood gobolka uu maamulahayay ayadoon international community hal organisation uusan imaanin annakaa dhisnay annakaa aasaasnay annakaa maamulaynay ilaa naloo kaga yimaado oo aan ku wareejino gacan nadiif waan tirinay dadkii baan tirinay meelahay ka yimideen baan qirnay inta ilmooday wataan professionkooda wuxuu ahaan jiray hadday xoololey ahaan jireen iyo hadday ahaan jireen buugaag iyo ayakoo ka samaysan 5 kitchenna aan ka samayno oo kitchen code uu leeyahay qof kasta ilaa dadku wax ma akhriyaan kalarka meeshuu cuntada ka doonanayo ay kalarkeedii uu haysto kaar ah ayaan ka tagnay markaad 4,000 ku dhufatid 6 aad ku dhufatid ilaa qoyskii Soomaalida 6 buu ka koobmaa meeqay noqonaysaa intaasaan waxaan haynay lacag gaar ah inakoon u haynin maraan wajigeena gadno maraan tujaarta la hadalno maraan hay-adaha Soomaalida la hadalno ayaan maamulaynin يعني وحاوي extremely waxyaabaha la isku qadariyo way thank you qofku dhahay ma jirin oo qof waa mahadsan tahay balse qof ku og ma jirin sidoo kale xerada rajo ee Turkida markii dambe aan ku wareejinay anaga sameeynay inta hadda ku jirta waad yaabaysaa intay tahay marka doorka aan ka qaadanay abaarihii dawladdu centralka markii wufuud u yimaado waxay geen jireen madax waaweyn bay waxay geysay xerooyinka badbaado iyo rajo there was no wax input ah yani marba waxaa la ballan qaaday central government markaan bilowgii guddi wasiiraha la magacaabay oo la dhahay guddiga arrimahaas abaaraha ah guddigii marba waxaa la ballan qaaday idaacada laga sheegay in xukuumaddu ay 500,000 ay hayso gobolku deymuhu galay ilaa hadda wasaaradda maaliyadda la yaalaan warqadahoodii xataa looma soo celin meel 40 iyo dhowr kun ah meel 60,000 ah oo deyn ah oo ilaa ayakaana diray waxay dhaheen sameeya meesha annaka lacagtaas meel loo dhigay markii dib lacagta meel baa loo waayay wala bixin waay lagama hayo gobol kale cover gareey wixii laakiin meesha waxaan rabaa maadaama aan sheegtay taas inaan u mahad celiyo hay'adda qadar charity la'aanteed hawshaas ma qabanin way noo soo gurmadeen shaqay nala qabteen
taageerayna siiyeen raashin bay keeneen isbitaal bay ka fureen aad baan ugu mahadcelinaya la-aantood waxba ma qaban karneen marka tarsan waxaad soo qabatay shaqo xoog leh oo muuqata waxaad ahayd madaalaha gobolka banaadir haddii aan naanays anigu ku doorto runtiina waad muuqatay markii bilicda magaalada muqdisho aad soo celisay wanaagga imika aad sheegaysid laftiisa ee xeryaha qaxootiga gargaarkii aad gaarsiisay xilligii abaaraha iyagoona aadihii iman waxaas wanaagga markaad samaysay xilkii baa lagaa qaaday iyadoo aan weliba la filayn adiga iyo dadka soomaaliyeed ee ku taageersantoona tarsanow ma rumaysan tahay in lagu xumeeyey maya ma rumaysnin in la xumeeyey waxaan la ii xumaynin xilkani ani layma dooran waktina ma lahayn yacni qofka la doorto wuxuu leeyahay waqti buu leeyahay 4 sano 5 sano 3 sano waxaasuu leeyahay mandatekana wuxuu ka haystaa shacabka doortay buu ka haystaa marka anigu mandate kama haysan shacabka oo shacabkii ima dooran madaxweynaha i magacaabay madaxweyne cusub baa yimid madaxweynaha cusub wuxuu xaq u leeyahay dadka la shaqaynaya inuu isagu doorto hadduu u doortay marka in qof isaga la shaqaynaya in uu maaragtay doorto xaq buu u leeyahay baan qaba marka layma xumayn laakiin in lagu xumeeyo waxaa ka muuqataa tarsanow jago kale oo lagu magacaabay oo ahayd wasiir ku-xigeenka isboortiga waxaa dadka soomaalida oo fara badan ay u arkayeen inay tahay soor quudheed meel aan kuu qalmin adiga laftaaduna jawaab degdega ayaad ka bixisay xataa markii ay soo baxday wareegtadaasi magacaagu si sax uma qoreen marka miyaan la odhan karayn aanay halkaa ka muuqan in lagu xumeeyey marka booskii dambena diiday adigu horta madaxdu waa mahadsan yihiin oo jago wasiir ku-xigeen bay ay igu magacaabeen laakiin anigu ma qaadan mana rabin iska daa jaga wasiir ku-xigeen mid wasiir ma qaateen sababtoo ah waxa anigu mabaadidan rumaysana waxaa waa meesha aan qabanahayo waa inay ii muuqataa inaan wax ka qaban karo wax ka bedeli karo haddayna ii muuqan in aan wax ka qaban karo wax ka bedeli karo asbaab aan u qaato ma jirto marka anigu ma raadinayn magac title ma raadinayn meel aan wax ka bedeli karo ummadan aan ka anfici karo oo ummadan bulshada aan wax ku soo kordhin karo ayaan raadinaya ha yaraato ha weynaato quursi iyo quursi la-aanba maaha tii anigu waxaan u arkay in ayna ahayn meel aan wax ka qaban karo aanan ummadana ugu adeegi karin inay tahay baan tiina markaas sidaasaan ku diiday laakiin in la xumeeyo anu ma qabo waxaa jirtay shaqada haysa waxay ahayd dabcan shaqo qaran shaqada qarankaad haysay marka aada la hadlaysid warbaahinta mararka qaarkood shir jirayd baad qaban jirtay howlaha aad qabataan gobolka banaadir wixii la soo gudboonaada jawaabaha waxaa dhinac socday jawaabo kale oo odayaal markaasi qabiil ama qabali matalaya ay kaa dhinac hadlaan hadalkaagi buriyaan beeneeyaan ku canantaan gar kuu dhigtaan mararka qaarkood adiga iyo tarsanow qabiil sidee u wada shaqayn jirtay fiiri qofka markuu mas-uuliyad qabto magiciisa iyo sumcadiisa iyo sharafkiisa iyo qoyskiisaba intaba wuxuu keenayaa public domain bannaankuu soo dhigahayaa wax ka xaaraantinimaysan male dadka dhan inay wax ka sheegaan oo ay ama ay caayaan ama ay wax ka sheegaan ama ay xumeeyaan ama maogtahay taas marka anigu waan ku talagalay oo mid meel iga celinaysa ama cabsi gelinaysa ama shaqadaan qaban lahaa dib iiga dhigaysa ma jirin xamar markaan qabanahay waxay ahayd challenge weyn bay ahayd odayadan sibay u arkahayeen anna sibaan u arkahayaa qabiilku waxaan aaminsanahay in uusan waxtar lahayn wax uu ummadan ku tarahayo inuu dhibaato u keeno inuu burbur u keeno ama wax kuma tarahayo marka ama oday ha hadlo ama yuusan hadlin ani mowqifkayga waa kasii wadanahay meesha aragtidayda way sii soconaysaa marka uma aabayeelin qofkii hadla aniguna xumaan uma qaadanayno ayagoo maanta idaacadda iga caayaan maalinta dambena aan wada hadlaynoon sheekaysanayna aan wada shaqaynayna tarsan inoo ma sheegi kartaa hal shay oo aad qoomamaysid ama aad ka shalaydid inaad qabatid markii aad ahayd duqa magaalada muqdisho ama guddoomiyaha gobolka banaadir markaad keligaa naftaada la showrtid aad tirahayd alla halkaa ma ahayn inaad martid dariiqaas ee waxay ahayd inaad sidaa u qabatid ama aad tirahayd arrinkaasoo berigaa sidaa loo turjintay inaad sidaa ka yeeshid bahayd maxaad xasuusan kartaa mid arrin sidaad u dhigtay ama xasuusan karo oon hadda qoomameynahayo waxaasaad samaysay saas inaad u samayso maahayn aan dhihi karo ma jirto laakiin waxyaabo badan oon rabay inaan gaaro himiladayda inaan gaaro ay ahayd ayaanan gaarin taasaan marka xoogaa aan isdhihi karaa allailehe amaad gaari kartay himiladaas meelahaas inaad
himiladii waxay ahayd magaalada muqdisho inay 5 sano kusoo noqoto magaalo caadi inay kusoo noqoto oo magaalo loo soo xiisayo oo amni ah oo dhisan oo kaabaheeda dhaqaale u dhisan yahay jidadkeedu dhisan yihiin korontadeedu inaf ay tahay biyo nadiif ah shacabka dhan uu biyo nadiif ah cabahayo himiladeena taas ay ahayd inta kale shacabka samaysan karay hawsha ka qabyada ahayd marka aad baad uga xun tahay qabyo ka ahaato waaye su'aal kale hadaan ku weydiiyo maamul goboleedyada Soomaaliya ku soo badanaya maxaad ka aaminsantahay ka tarsanaha anu maamul goboleedyada mid waan aaminsanahay regional autonomy in awoodda lagu celiyo oo ay arrimaha regionkaas quseeya ay ka shaqeystaan sida tacliinta caafimaadka horumarada dhismada magaalooyinka waxaasoo dhan ani taas waan ogolahay oo ay internal isu maamulaan laakiin maamul goboleedyadan hadda states kale leeyahay su'aalo badan baan ka qabaa su'aalahan ka qaba waxaa waaye xuduudka maxaa lagu salaynayaa ma qabiil baa lagu salaynayaa ma historical baa lagu salaynayaa haddii lagu saleeyo qabiil stateyadaas qabiil baa majority noqonaya qabiilkaas majority-ga noqday qabaa'ilkii kale awoodoodii amase xuquuqday lahaayeen xuquuq ka yar miyay helahayaan oo waxay ku noqoni gobolkoodiibay waxay ku noqoni second class citizen mathal haddii haddaan hadda gobol magacaabo waa lay qabsanay laakiin haddii ka soo qaad gobol baa dowlad goboleed noqday qabiil baa u batay qabiilkii wuxuu aaminsan yahay asaga inuu madaxweyne ka noqon karo bis wasiirada muhiimka ana asagu inuu ka noqon karo maaliyadda iyo arrimaha dibadda inuu asagu ka noqon karo ayuu aaminsan yahay qabaa'ilkii kale marka yaryaraa ee meesha deganaa deegaankoodii iyadoo la joogo oo canshuur dhiibahaya ayay waxay ogsoon yihiin indirectly waxay ogsoon yihiin in ayna suuragal ahayn weligood inay madaxweyne ka noqdaan mathal marka taasi cadaalad maaha marka xuduudkan maxaa lagu salaynayaa xiriirka dowladda dhexe miyaa daciifaysa oo waxaan noqonaynaa isteedyo farta loogu yeerto ayaa noqonaynaa dowladaha danaha nagale ay farta ugu yeertaan annakii miyaa layska keen horkeenahayaa oo dagaal qabali ah oo xuduudyo ku saabsan iyo daaqsin ku saabsan miyaa naga dhexdhacahaya sidee magaalooyinka la wada degan yahay sidee loo matal gaalkacyo haddaad soo qaadatid gaalkacyo way qaybsan tahay wax kale kuma qaybsanaya shacabkii soomaalida wada degan shacabkii soomaalida qabiil bay ku qaybsan tahay waxaa la leeyahay inta wixii xagga ka xigana qabiil hebel baa leh oo xaggaasi ka tirsan tahay inta wixii ka soo xigana qabiil hebel baa leh oo xaggaasi waxyaabahaas wuxuu kaaga jira systemka nooca la isticmaali doono sida loo isticmaalo ka gudbino waxaan ku siin doonaa laba su'aalood oo isbarbar yaallo isku hal su'aal la oran karo weeyaan oo aad fursadan kaga faa'iideysan doontid inaad kula hadashid mid dadka aad guddoomiyaha u ahayd ee gobolka Banaadir oo si gaara markay ku arkaan ku xasuusan doona waxaan kaloo kaalinta dambe ku siin doonaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyana wixii aad u jeedin doonto laakiin hal baan ka horreysiinaya dhinaca faragelinta Soomaaliya amisom bay idin ilaalinaysay min madaxweyne ka bilow ra'iisul baarlamaan hay-adaha dowladda Ethiopia joogta Rwanda joogta Burundi baa joogta Kenya joogta UN baa lagu idin kule caalamka oo dhan baa isheedin ku haya Soomaaliya oo kale ka siyaasi ahaan wax badan baad ogtahay tarsanow dad ba aaminsan Soomaaliya in aanay waxba gacanta ugu jirin mas'uuliyiinta imika in magacaabayno laakiin la hayo ay yihiin dad meesha lagu eeganayo kii xoogaa iswaala ama isxarifiyana markaas meel gooniyo loogu yeeriyo oo instruction iyo tilmaamo la siinayo maxaad ku oran lahayd dadka ku daawanaya والله waxaan leeyahay dadka wadankan anaka iska leh wadankan amnina kama dhigi karaan ciidamada dibadeed lacag dad kale canshuur laga soo qaadayna nooma dhisayso marka waxaan dhihi lahaa anaku inaan isku tashano oo marka ugu horeysa ciidamadeena inaan dhisno oo ay dhab naga noqoto ciidamo xoogan oo discipline leh ciidamadeena waa dagaalyahano weeye wiilasheenu aad bay u dagaalamaan ciidan ka hor imaan kara markii qalabku u dhan yahay ma jiro ciidamadeena inaan diyaarino laakiin arinta wig nagu hayso waxa oo tacbaanka lanahay waa discipline xumo weeye in discipline loo yeelo in xerooyin ciidamada lagu xereeyo ee magaalada lagu soo dhaxdeynin sababtoo magaalada amni daradeeda waxaa ka mid ah ciidamada hubka wada watay rasaastii uga buuxdo oo magaaladii dhex maraya ayaa amni darada ka mid ah in ciidamadan laga xereeyo xeryahoodii loo sameeyo in aan anaku tujaarteenu iyo dadku ogolaadaan inay canshuur dhiibaan in shacabka canshuurta ay dhiibayaan aan jeebka la gashan ee wax loogu qabto jidad loogu dhiso iskuulo loogu dhiso isbitaallo loogu dhiso biyo macaan loo sameeyo shacabka Soomaalida haddayna taas iyaga la imaanin weligeen dawlad isku filan ma noqonayno haddaan fiirinayno in international community gacanta aan u taagayno markasta
awood kalena aan gacanta u taagayna inay amnigeena ilaaliso waxaa waye dowlad ma noqonayno taasaan leeyahay marka aad baad mahadsantahay labadii su-aalood aan kusoo horreysiiyo dadka gobolka banaadir aad u ahayd guddoomiyaha gobolka banaadir tarsanow kelmadaada maxaa odhanay anigu kelmadda soomaaliya oo dhan aan dhahayaan dadka gobolka banaadir dhahaya gobolka banaadir markaan ka hadlaya mas-uuliyadeyda ku ekeyd gobolka banaadir laakiin gobolka banaadir inta aan la jecelahay horumar iyo amni iyo wanaag ayaan la jecelahay gobol kasta oo soomaaliyeed meel kastuu ku yaalaba ayaan la jecelahay marka ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto gobol kasta waxaan leeyahay war ku dadaala ummaddu bulshadu in ay is ogolaato isla noolaato in aad horumar samaysiin inaad noqotiin bulsho wax soo saar leh khayraad baa wadankan ka buuxa in aad dadka ku dhiirigeliseen dadku in ay naftooda ku tiirsanaadaan oo ay wax soo saar yeeshaan ha lagu dhiirigeliyo dadku waxaan leenahay nabad in lagu wada noolaado burburka nagaare waad arkaysiin qabiil baan ku dagaalanay qabiilkii burburka uu qarankii gaarsiiyey iyo kala jabka uu gaarsiiyey waad arkaysiin adinku hadda goboladii haddana ha ku dagaalamina oo qabiil ha u dagaalamine cadaalad ummadan bulshadan waxay u baahan tahay bulshad cadaalad lagu dhaqa ay u baahan tahay cadaalad ku dhaqa bulsho cadaalad ku dhaqmaysa noqda taas ayaa marka midnimada iyo maaragtay soomaalinimadaba ku hagaagaysaa mid soomaalidana waa un intaas tahay baan dhihi lahaa in ka duwan ma dhahahay tarsan waxaad u egtahay nin farxaana oo qosol badan oo niyad wanaagsan hal mar baan ku arkay adigoo cadhaysan markaan ku arkay waxay ahayd mar amiin caamir farshaxanka soomaalida ee degan wadanka Canada uu kugu tilmaamay inaad tahay nin laalush qaata bililaqa u tafaxaytay adiguna aad si adag oo cadhale aad ugu jawaabtay ninkaas dabeetana aad ku tilmaantay in isaga laftiisa uu yahay nin lacag lagu shubto lacag qaata ereyadaadii marka aad lahayd dad baa u qaatay hanjabaad waxaana ka mid ahaa qaybaha hadalladaada qaar ama qayb sheegaysay in uu mari doono halkii kuwii horumareen haddii aanu ka joogin tallaabooyinka uu qaadayo ee mas-uuliyiinta soomaalida uu wax kaga sheegay amiin camir dhibaatada soomaalida saameyn intee leeg buu ku leeyahay fiiri anigu cayma diido waxaa jira idaacad ila daba joogtay intaan guddoomiyaha ahaa cay ila daba joogtay iyo xumaan iyo been ila daba joogtay amiir caamir wuxuu aniga iga soo qoray inay been tahay baan aaminsanahay ee loo soo dhiibay ee dheh la dhahay balse qarash in lagu bixiyaan aaminsanahay wixii aniga layga sheegahayay aniga I will challenge hay-adda keliya ee waxaan nahay 6 jeer ay hay-adda hanti dhowrka ay u timid ay baartay ee ay report waxaan wareejiyey 5 report oo ay oo maalintii ugu dambeysay 3 beri ka hor ay hanti dhowrka ay naga tagtay oo ay baartay baan wareejiyay anigu oo hadda rekoorkeedii uu yaala waxa marka uu soo qoray wax ma ahayn run ah oo fikirkiisa ma ahayn waa dad waxay u sheegeen ayay ahayd intaan sheeganay taasay ahayd midda ah wuxuu mari doonaa waxaa weeye aawe idaacaddii i daba socon jirtay oo i caayi jirtay oo wax iga sheegi jirtay idaacaddaas markii hore waxaan ku yidhi adinkaa daali doona anigu ma daalayo adinku ha daalina markii dambe waxay noqotay yaa sheegay waxaas idaacad heblaa sheegtay in la dhaho asagu marka waa la jecel yahay waa nin fanaan artista ah wanaagsan yahay soo ma garan haddii marka ay noqoto marka qof fikirkiisa inuu soo bandhigo anigu waan taageersanahay waxaan asagoo wax iga soo qoraan London ku kuranay war qorbaan erfiri wuxuu soo qoray mar anigoo kab camal ah oo Sheekh Shariif dadka igula tumanahay war waxaan rar ana wax kale igu sheeg kab hay igu sheegin waa kafee baan wada cabnay aan London ku wada cabnay wuxuu ku jawaabay soo ma garan uu iska qoslahay marka anigu kama xanaaqin waxa uu qorahay wuxuu sheegahay arintan aan leeyahayna kuwii hor meesha waxa weeye farshaxanka la nici doona marka qofka ay noqo fikirka markay noqon weydo wax ka soo baxay ee ay noqoto wax bulshada isu adeegsato kana nacabahay sidaas ka qor markay noqoto markaas marka dambe waxa la leeyahay amiir caamir waa la nici doona laakiin ha iska hadlaynin professionka taasan ka waday marka handadaad kale aad baad mahadsantahay maxamuud axmed nuur tarsan daawadeen intaasi ayaan kusoo koobiyaa waraysigaasi aanu galabta kula yeelanay studioheena Avro Studio ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota gudoomiyihii hore iyo duqi hore ee gobolka Banaadir maxamuud axmed nuur tarsan oo isagu marti noogu ahaa studioheena tani kulankeena dambe waraysi kan oo kale intaan dib ugu kulmi doono waa cali xalaalo dhamaantiin beedin kaga tagay sidaa iyo nabad geliyo